Soomaaliya mar ayay ahayd waddanka ugu dimuqraadiyadda wanaagsan Afrika. xilli waxay ahayd dal xukunkiisa ay la wareegeen askar hubaysan. dimuqraadiyaddii curdanka ahayd iyo dastuurkana la laalay. hadda 30 sano ku dhowaad ma lahayn dawlad sharci ah. sanooyin badan waxa ay soo martay xukuumad ku meel gaar ah. 8 sano ee naweydaartana waxa ay ahayd dawlad aan weli hay'adaheedu lahayn awoodda u dambaysa. xilli kastana waxaa bilowda 4 sanaba mar iska qabsi xagga xukunka iyo doorashooyinka ah oo halis weyn geliya deganaanshaha iskaba yar marar badan. hadda kama hadlayna taariikhaha aan soo sheegnay, waxaanse isdhex taagaynaa laba xaqiiqo oo ka kala jirta gudaha Soomaaliyadii midowday 1960kii. dhinac waa doorashooyin ugu yaraan cadaalad sinaan iyo tartan xoro ka muuqdo, iyo doorashooyin 4 sanaba muran iyo qaylo halis badan ku jirta dhacda. waana isbarbardhigga doorashooyinka hadda loo madlan yahay 2021 inay ka kala dhacaan koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Somaliland. koonfurta dalka waxa ay gaartay xaraaradda ama kulka ka dhashay doorashooyinka 2021 arrintoodu meel halis badan. siyaasiyiinta qaarkood waxa ay ku celcelinayaan halkii burburku ka soo bilowday ee 1991dii. hadalladooda ayaa lahaa ficillo waaweyn oo abuuri kala qaybin bulsho iyo dhawaaqa reeraha oo aan Soomaaliya waqtigan dan ugu jirin. koonfurtu 4 sanaba marka ay dhammaan rabto muddaxileedka xukuumadda xilligaasna waxaa la galaa dabaylo siyaasadeed. hardanku waxa uu dhexeeyaa ciddii kursiga fadhida xilligaas iyo koox bannaan joog ah. ma jirto siyaasad iyo ajanda dadweyne loogu adeegayo, balse waxaa jira taas beddelkeeda shabakado iyo isbahaysiyo yoolkoodu yahay oo keliya kursiga iyo ka samaynta dhaqaale. waxayna u kala tartamaan gacmaha shisheeye, gaar ahaanna waddamada Carabta oo malaayiin dollar rumaysan yahay inay ku taageeraan hadda musharaxiinta ay u arkaan inay kaalimaha hore soo geli karaan. dhinaca Somaliland, jamhuuriyadda aan aqoonsiga caalamigii haysan, goonisutaagan uga dhawaaqday Soomaaliya 1991dii, ayaa doorasho u dareeraysa bisha May ee sanadkan. waa doorashadii 6aad ee dadka Somaliland soo dooranayaan golayaasha dawladda ku matala. waana doorasho ay ka qayb qaadanayaan muwaadiniintu oo iyagu toos codka ugu soo saaraya mudanaha ay cugtaan. Somaliland hore waxa uga qabsoomay 5 doorasho oo 3 madaxweyne tahay, mid baarlamaan iyo 2 golo deegaan. doorashooyinkan qaybtood waa isi saarnaanayaan, balse dhammaan hadda golayaasha Somaliland ka jira waxa ay ku yimaadeen cod dadweyne. waana sababta mar kale dadweynaha Somaliland ay u doonayaan inay garsoor ka noqdaan. inkastoo doorashooyinkii hore ay wajihi jireen caqabado kala duwan, kuwa sharci iyo qaanuun, kuwa amni, kuwa deegaan, iyo kuwa ku salaysan wacyiga iyo waayaha codbixiyaha, hadda waxay u muuqataa Somaliland in ay qabanayso doorasho ka horumarsan kuwii hore. marka laga eego dhanka deegaanada ay ka dhacayso, diyaargarowga guddiga, xisbiyada iyo dawladda Somaliland. May 2020 ayaa loo asteeyay inay noqoto goorta dadku codkooda dhiibanayaan. in ka badan 1000 goobood ayay codka ka dhiibanayaan muwaadiniintu, kuna kala yaala gobollada kala duwan ee Somaliland. golayaasha deegaan iyo dawladaha hoose ee degmooyinka 24 ah ayaa la soo dooranayaa. dadka deegaanka ayaa soo saaraya mas'uuliyiinta maamuli doona, waxaana xiisaha u yeelaya wacyiga dadka oo sare u kacay iyo rabitaanka ay rabaan in dadku kala saaraan kartida iyo daacadnimada waxqabadka ay muujin karaan ragga iyo hablaha loolamaya. si la mid ah, deegaanka waxaa la soo dooranayaa xubnaha baarlamaanka Somaliland. 84 mudane ayaa codka dooranaya, dhammaantoodna waxa ay u kala safrayaan deegaan doorashadooda si ay codka dadweynaha u soo helaan. inta badan xubnaha hadda jooga ayaa kol hore isaga tanaasulay inay doorasho aadaan maadaama ay muddo dheer fadhiyeen, qaarkoodna waxqabad xumo lagu eedeeyay. aqoon-yahanka iyo da'yarta ayaa doorashadan aad uga dhex muuqda. kooxo ururaha ayaa aad saamayn ugu leh doorashada. waxay ololo u wadaan magacyo dhalinyaro oo ay ku tuhumayaan daacadnimo, hawlkarnimo, waana sifo ka duwan qaabka doorasho ee deegaanada kale ee Soomaalida. xamaasadda ugu weyn waxa ay ku jirtaa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo maamulka hadda jooga ay la kulmayaan cadaadis isbeddeldoon ah. magacyada musharaxiinta iyo halkudhagyadooda ayaa lagu taagay fagaarayaasha caasimadda Hargeysa,
dhanka gobollada gobolka sool ayaa sanadkan u muuqda gobol hardan adag ka dhici doono maadaama la filayo in guddoonka baarlamaanka soo socda ka soo baxa gobolkaas siyaasiyiinta muxaafidka ayaa awood badan gelinaya gobolka oo u muuqday inay sanadka doorashadu ka dhici doonto inta badan goobaha loo asteeyay ee doorashooyinka ee gobollada sool sanaag dhinaca koonfurta ee soomaaliya markaynu eegnana xildhibaanka soo baxaya waxa uu rajaynayaa inuu 100,000 kun oo dollar ku bixiyo codka 101 ergey kuwaas oo lacagta isagu uusan jeebkiisa ka keenayn hase yeeshee ka soo qaadaya musharaxiin iyaguna ka keenay gacan kale oo shisheeye taas oo ka dhigaysa in ugu dambaynta codkiisu iib yahay maadaama ergeyga soo baxaya lacagdu ay ku soo qorayaan isimada ama maamuladu ka soo bilow ilaa ergey isim ilaa xildhibaanka oo ugu dambayn codka iibsanaya musharaxa oo ku iibsanaya lacag uu meel kale ka soo waariday waxa ay ka dhigan tahay koonfurtu inay iib tahay halka dadka kala duwan ee Somalilandna codkoodu uu wax goynayo